waxa uu soo ahaa dal awood leh mar kalena sabool ah mar kalena quwad dhexdhexaad ah maanta se isu bedelay awood ay qasab tahay in lagu xisaabtamo siyaasad ahaan military ahaan dhaqaale ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba dunida maanta marka go'aamo waaweyn la gaarayo gaar ahaan kuwa khuseeya amniga tamarta ganacsiga iyo xasiloonida waa dal si joogto ah miiska u jooga su'aasha dhabta ah ma aha in maanta uu quwad yahay iyo in kale balse waa sidee dalkaas uu ku gaaray heerkan maxaase ka dambeeya isbeddelkiisa ballaaran tabinteennan Tifaftir Media waxay si qoto dheer u dul istaagaysaa jidkii Turkiga uu u maray inuu noqdo quwad aan la iska indhatiri karin soo dhawaada bilowgii qarnigan Turkiga ma ahayn dal awood culus leh siyaasadda gudaha waxay ahayd mid qalalaasa ku jirta dawladuhu way isbadbedelayeen kalsoonida shacabkana waxay ahayd mid hooseysa dhaqaalaha waxa uu wajahayay sicir barar sare halka dakhliga qofkii soo gala uu ahaa mid aad u hooseeya waqtigaas guud ahaan wax soo saarka dalka wuxuu ahaa mid xadidan Turkigana ma uusan ka mid ahayn dalalka dhaqaalahoodu sida dhabta ah loogu xisaabtamo saamayntiisa caalamiga ahna waxay ku koobnayd xubinnimadiisa gaashaanbuurta NATO iyo xiriir dhow oo uu la lahaa reer galbeedka balse ma uusan lahayn cod madax bannaan oo xooggan isbeddelka dhabta ah wuxuu bilowday markii uu talada la wareegay Rajab Tayyip Erdogan horaantii 2000 hogaamintaas cusub ayaana la timid aragti ku salaysan qorshe qaran oo fog mudnaanta koowaad waxa la siiyay xasilinta siyaasadaha gudaha dib u habaynta hay'adaha iyo dib u dhiska kalsoonida dadweynaha intii lagu guda jiray dhowrkii sano ee ugu horeysay talada Erdogan Turkigu waxa uu ka gudbay xaalad qalalaasa ah isagoo u tallaabsaday xilli xasilooni arrintan ayaa suurto gelisay in la bilaabo qorshayaal waaweyn oo istaraatiiji ah kuwaas oo saldhig u noqday kobac dhaqaale iyo saameyn siyaasadeed mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee isbeddelka Turkiga waa dhaqaalaha tobannaankii sano ee la soo dhaafay wax soo saarka guud ee dalka ayaa in ka badan 3 laab kordhay dhaqaalaha wadankuna waxa uu ka mid noqday 20ka dal ee ugu waaweyn dhaqaale ahaan adduunka taas oo si cad u muujinaysa miisaankiisa dakhliga qofkii ayaa si weyn u kordhay malaayiin qofna waxay ka baxeen saboolnimada kaabayaasha sida garoomada diyaaradaha wadooyinka waaweyn dekadaha iyo warshadaha ayaa si xawli ah u ballaartay dhaqaalaha si xoogan ayaa Ankara siiyay awood ay ku maalgeliso amniga tiknoolajiyada iyo ballaarinta saameynteeda dibadda Turkiga maanta wuxuu leeyahay siyaasad dibadeed oo firfircoon isla markaana mararka qaarkood ka duwan mowqifyada ay qaataan quwadaha waaweyn Ankara waxay si cad uga hadashaa arrimaha adduunka waxayna qaadataa go'aamo ku salaysan danaha qarankeeda tirada safaaradaha Turkiga ee dibadda ayaa si weyn u kordhay gaar ahaan Afrika halkan oo uu Turkigu ku yeeshay safaarado ka badan intii uu lahaa horaantii qarnigan tani waxay muujinaysaa sida ay xukuumadda Ankara u ballaarisay joogitaankeeda diblomaasiyadeed Turkiga wuxuu door muuqda ka qaatay dhexdhexaadinta khilaafaadyo haddii ay noqon lahaayeen muranno goboleed ama wada hadallo adag oo la dhexdhiga dawlado isu culeysan Ankara waxa marar badan loo arkay dal dhexdhexaad ka noqon kara arrimaha caalamka arrintaas ayaa kor u qaaday kalsoonida beesha caalamka waxaana Turkiga siisay sumcad ah inuu yahay dal nabadoon ah halkii uu ka noqon lahaa dal col u jooga military ahaan Turkiga waa mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan gaashaanbuurta NATO wuxuuna leeyahay ciidan 100,000 ah waa mid ka mid ah ciidamada ugu tababarka badan gobolka miisaaniyada difaaca Turkiga ayaana sanad walba ku jirta 10ka dal ee ugu sareeya Yurub awoodan military waxay Turkiga u suurto gelisay inuu si madax bannaan u fuliyo howlgallo una difaaco danihiisa gudaha iyo dibaddaba halbeeg muhiim ah oo muujinaya kororka Turkiga waa horumarinta warshadaha difaaca qiyaastii 70% ilaa 80 qalabka military ee Turkiga maanta isticmaalo waxa lagu soo saaraa gudaha wadanka sidoo kale dhoofinta qalabka difaaca ayaa sanadihii u dambeeyay gaartay balaayiin dollar taas oo ka dhigtay Turkiga dal dhoofiya hub iyo tiknoolajiyad military Afrika Turkiga waxa uu si gaar ah diiradda u saaraa iskaashi ganacsiga Turkiga iyo qaaradda ayaana kor u kacay dhowr laab tan iyo bilowgii qarnigan 10,000 oo arday Afrikaan ah ayaa wax ku bartay Turkiga halka mashaariic kaabayaal ah laga hirgeliyay dalal badan Soomaaliya Turkiga waxa uu ka fuliyay mashaariic waaweyn oo dhinacyada amniga waxbarashada caafimaadka iyo kaabayaasha ah taas oo Ankara ka dhigtay saaxiib istaraatiiji ah falanqeeyayaal badan waxay isku raacsan yihiin in guusha Turkiga ay ku dhisan tahay 3 tiir oo waaweyn qorshe qaran oo fog hoggaan go'aan adag iyo isku dheelitirnaan siyaasadeed dhaqaale iyo military Turkiga waxa uu la macaamilaa quwadaha waaweyn isaga oo ilaalinaya madax bannaanaanshaha go'aan qaadashada taas oo ka dhigaysa dal aan si fudud loo cadaadin karin
marka la isku dhafo dhammaan qodobada aan soo eegnay hal xaqiiqo ayaa si cad u muuqata taasina waa Turkiga inuusan ahayn quwad ku timi si ku meel gaar ah balse waa awood si nidaamsan u dhisan leh aragti fog iyo jihayn istaraatiiji ah saameyntiisa maanta kama dhalan hal arrin oo kaliya balse waa natiijo isku darka dhaqaale xoogaystay hoggaan go'aan adag diblomaasiyad firfircoon iyo awood military oo si miir leh loo maareeyay Ankara waxay si xeel dheer u fahamtay isbeddelka dunida hoos u dhaca quwadaha qaarkood soo kordhinta nidaamyo cusub iyo baahida dalalka soo koraya ee raadinaya bahwadaag aan ku dhisnayn ku tagrifal iyo ku tiirsanaan buuxda halkaas ayuu Turkiga ka helay fursad uu ku buuxiyo booska bannaan isaga oo isku muujiyay dal isku mar la hadli kara galbeedka bariga iyo dunida soo koraysa siyaasad ahaan Turkigu wuxuu muujiyay in uusan ku xirnayn hal xiro oo quwadaha caalamka ah balse uu leeyahay awood uu ku dheelitiro xiriiradiisa una ilaaliyo danihiisa qaran military ahaan wuxuu cadeeyay in quwaddu aysan ahayn tirada hubka la haysto oo kaliya balse ay tahay isku filnaansho karaan hawleed iyo go'aan qaadasho madax bannaan dhaqaale ahaan wuxuu dhisay saldhig u ogolaanaya inuu sii wado saameyntiisa muddo dheer dhinaca kale dalalka sida Soomaaliya isbeddelkan Turkiga wuxuu u yahay fursad istaraatiiji ah xiriir ku dhisan iskaashi ixtiraam madax bannaani iyo dan wadaag ayaa siin kara dalalkaas awood ay ku xoojiyaan amnigooda ku horumariyaan kaabayaashooda una helaan saaxiib caalami ah oo miisaan leh Turkiga maanta waa quwad aan lagu qiyaasi karin hadal kaliya balse lagu cabiri karo ficil saameyn iyo joogitaan waa dal ka gudbay marxaladii la iska indhatiri karay una tallaabsaday heer go'aamada caalamiga ah uu si toos ah u saameeyo sidaas darteed mustaqbalka dhow iyo kan fogba magaca Turkiga wuxuu sii ahaan doonaa mid ka dhex muuqda miisaska waaweyn ee lagu gaaro go'aanada dunida su'aasha hadda taagan ma aha in Turkigu sii ahaan doono quwad la tixgeliyo balse waa heerka iyo jihada uu gaarsiin doono saameyntiisa mustaqbalka ma sii xoojin doonaa kaalintiisa bariga dhexe ma sii ballaarin doonaa joogitaankiisa Afrika ma noqon doonaa mid ka mid ah quwadaha ugu saameynta badan ee nidaamka caalamiga ah ee soo baxaya su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaan uga jawaabeynaa tabinteena tan xigta innaga oo si gaar ah u falanqeyn doona jihada mustaqbalka ee Turkiga caqabadaha hor yaalla iyo sida ay isu bedeli karto kaalintiisa caalamiga ah inta aanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh ha moogaanina inaad ku xirnaataan Tifaftir Media waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin nabad iyo warsan